kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena maantana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan Itoobiya iyo ujeedada ka dambeysay in halkaasi aado xilli Masar Soomaaliya ay imaan doonto Mareykanka oo ballanqaad muhiim ah u sameeyay Soomaaliya ganacsada Jabuutaawi oo kiis xasaasi ah lagu xiray magaalada Laascaanood ololaha aqoonsi raadiska Somaliland oo galay waji kale oo xasaasi ah ciidamada Jubbaland oo ka baxay Kenya iyo arrimo la yaab leh oo ay ku kaceen inta aysan dhaqaaqin ajaanib ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo nolosha lagu qabtay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena ee ku soo dhawaada saaxiibadana u shargaray muuqaalkan aynu ku bilaabana daawadayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku sii wajahan wadanka Itoobiya xilli xaalad xasaasi ah oo Masar iyo Itoobiya u dhaxaysa gaar ahaan Soomaaliya saameynaysa ay jirto madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku wajahan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida la ogaaday waxaana xasan sheekh maxamuud ka qayb gali doona shir muhiim oo halkaasi ka dhici doona toddobaadkan ayuu tagi doonaa magaalada Addis Ababa halkaasi uu qayb gali doono shirka cimilada ee Afrika isla markaana uu kulan kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay Addis Ababa waxa uu sidoo kale kulamo duceedyo la qaadan doona madaxda kala duwan ee Afrika oo ka qayb galaya shirka cimilada oo halkaasi ka qabsoomi doona socdaalkan ayaa imaanaya xilli hoggaanka Itoobiya ay ku cadaadinayaan madaxda Soomaaliya inay ka qayb galaan furitaanka biyo xireenka Itoobiya ee webiga Niil taas oo ay aad uga soo horjeedo dowladda Masar Soomaaliya ayaa haatan xiriir wanaagsan la leh Masar iyadoo qayb ka noqonaysa howlgalka midowga Afrika iyo nabad ilaalinta ee Soomaaliya ciidamada halkaasi u soo dari doonta Masar iyo biyo xireenka Itoobiya isku haystaan oo Itoobiya doonayso haatan inay furto ayaa Soomaaliya haddii halkaasi xaadirto waxay noqonaysaa fariin ay u direy doonto wadanka Masar taasi oo ah midaan u wanaagsaneyn Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sareysa ayaa waxa ay qorsheynayaan in aysan ka qayb galin furitaanka shirkaasi ama ay daraan dad mas'uuliyiin ah oo low profile ah ganacsada caanka ah Laascaanood ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in uu sameeyay falal amniga liddi ku ah wararka laga helayo magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari ayaa waxa ay xaqiijinayaan in xabsiga la dhigay ganacsadahan caanka ah oo lagu magacaabo Maxamuud Jabuutaawi go'aanka lagu xiray ayaa yimid kadib markii maxkamadda gobolka Sool ay waran qabasho ah u soo jartay ganacsadahan oo dhawaan isku sharaxay xilka madaxweynaha iyadoo markii dambe laga reebay liiska musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka waqooyi bari ismada dhaqanka beesha ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in Jabuutaawi xabsiga uu ku hoydo caawa maadaama maxkamaddu ay amartay garaadada ayaa halkaasi isugu yimid iyadoo ciidamada booliska ay ku wareejiyeen Jabuutaawi oo caawa ku hoyeen doona xabsigaasi ganacsada Jabuutaawi ayaa sida la sheegay ku eedeysan inuu ka dambeeyay falal liddi ku ah amniga oo dhawaan Laascaanood ka dhacay markana Somaliland aqoonsi raadinta Somaliland ayaa waxa ay gashay waji kale oo xasaasi ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa loogu baaqay in ay dib uga saarto Somaliland digniinta guud ee safarka Soomaaliya baaqan ayaa waxaa si wada jir ah u jeediyay gudoomiyaasha gudiyada golaha wakiilada Mareykanka u qaabilsan la dagaalanka xisbiga shuuciga ah ee Shiinayska xildhibaanadan waxa ay ku andacoodeen in haddii tallaabadan la qaado in si weyn ay u muujin doonto xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Somaliland isla markaana ay dhiiri gelin doonto maalgashiga Mareykanka iyo yareynta saameynta Shiinaha ee geeska Afrika maadaama Somaliland ay xiriir wanaagsan la leedahay Taiwan Mareykanka ayaa Taiwan wadan u aqoonsan taasina waxa ay tahay sababta ay Shiinayska uga cararayaan qoraal ay gudbiyeen wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Marco Rubio ayaa waxa loo sheegay in digniinta guud ee Soomaaliya ee xanibaadda socdaalka iyo ganacsiyada dadka Soomaaliyeed ee halkaasi tagi doona in aan lagu darin Somaliland inkastoo Somaliland ay leedahay nidaam dimuqraadi ah amni xasiloon iyo ka hortagga burcadbadeedka iyo argagixisada ayaa waxaa la sheegayaa in arrimahaasi aawadeed ay muhiim tahay in Somaliland laga saaro liiska dadka Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaali weynta la doonayo in dadka Mareykanka ah ay ka digtoonaadaan sidoo kale qoraalka ayaa xusay in tallaabadan ay Mareykanka ka caawin karto ka hortagga saameynta Shiinaha oo leh saldhig ciidan oo weyn oo ku yaala Jabuuti isla markaana taageero siinaya weerarada ay Xuutiyiintu ka fulinayaan badda cas labada xildhibaan ee qoraalkan u gudbiyay aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa ay ku doodayaan in Somaliland ay xulafo muhiim u tahay wadanka Mareykanka
ciidamadii Jubbaland ee dhowaan baqdinta iyo cararka ku galay gudaha wadanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay isaga soo baxeen, laakiin inta aanay ka dhaqaaqin gudaha Kenya ay ku kaceen falal argagaxle. dadka reer Kenya ee deegaanada xuduudda la leh Soomaaliya ayaa Arbacadii walaac ka muujiyay soo gelitaanka dagaalyahano ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo u soo gudbay xadka kadib markii laga soo bursaday magaalada Balad Xaawo oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga soo adkaadeen. maamul goboleedka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa muddo dheer ku dagaalamayay xadka Itoobiya iyo sidoo kale xadka Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya. bishii tagtay ayaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada istiraatiijiga ah ee Balad Xaawo oo ka tirsan Jubbaland, halkaas oo ciidamadii taageersanaa Axmed Madoobe ee jabay ay iyagu orod ku galeen gudaha wadanka Kenya. deegaanka waxaa ka jira cabsi weyn, dadka badankiisu waxa ay ka cararayaan ciidamadan hubeysan oo aan hore loo aqoon, kuwaas oo ku sugnaa gudaha dalka Kenya. waxaa intaasi lagu daray in ciidamadan hubeysan ee Soomaalida ah ay deegaanka ku sugnaayeen muddo 4 toddobaad ah ayna la wareegeen goobihii beeraha ahay maadaama ay ahaayeen ciidan dhumaalaysanayay. Ali Ibrahim Roba oo ah senatarka ismaamulka Mandera ayaa bartiisa X waxa uu ku qoray in ciidamadii Jubbaland wixii hadda ka dambeeya ay ka gudbi doonaan xadka Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana ay ku laaban doonaan gudaha Kenya. dowladda Kenya ayaa cadaadis waxa ay saartay Axmed Madoobe, waxayna ka dalbadeen in ciidamadiisa uu uga saaro gudaha wadankooda. taliska la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan muhiim ah waxay ku yeesheen Soomaaliya, taas oo Mareykanku arrimo muhiim ah Soomaaliya u ballan qaaday. magaalada Muqdisho ayaa martigelisay kulan ballaaran oo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha cusub ee Africom ninka loo yaqaano General Degefan. kulankan ayaa diiradda lagu saaray dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo doonayo in Mareykanku ay ka qayb qaataan sidii loo wiqi lahaa. taliyaha Mareykanka ayaa si cad u muujiyay sida Washington ay uga go'an tahay inay taageerto Soomaaliya, isla markaana ay u adkeynayso xuduudda ciidamada xoogga dalka. Mareykanka ayaa qorsheynaya in taageeradiisa cusub oo ay ku jiraan howlgallo cirka ah oo lagu beegsan doono kooxda argagixisada ah ay dhowaan bilaabi doonaan. labada mas-uul ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen xaaladda amni ee guud ee Geeska Afrika, iyadoo si gaar ah looga dooday khataraha ka imaanaya kooxaha hubeysan ee xuduudaha isaga gudbaya, kuwaasi oo gaari kara wadanka wadan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay Africom taageerada muhiimka ah ee Soomaaliya siiso, gaar ahaan duqeymaha ciidamada cirka oo kooxda argagixisada ah waqti badan lagu naafeeyay.